This is Amina's bag. Kani waa boorsada Aamina. This is the teacher's pen. Kani waa qalinka macalinka. This is the doctor's car. Kani waa gaariga dhakhtarka. This is the girl's book. Kani waa buugga gabadha. This is the boy's school. Kani waa dugsiga wiilka. This is the mother's phone. Kani waa telefoonka hooyada. This is the father's chair. Kani waa kursiga aabbaha. This is the child's toy. Waa toyga ilmaha. Who is this? Tani waa kuma. This is my brother. Kani waa walaalkay. This is my sister. Tani waa walaashay. This is my friend. Kani waa saaxiibkay. What is his name? Magaciisu waa maxay? His name is Ali. Magaciisu waa Cali. What is her name? Magaceedu waa maxay? Her name is Fartun. Magaceedu waa Fartuun. This is a big house. Kani waa guri weyn. This is a small car. Kani waa gaari yar. This is a good teacher. Kani waa macallin wanaagsan. That is a hospital. Kaasi waa isbitaal. This is my book. Kani waa buuggayga. That is your pen. Kaasi waa qalinkaaga. That is his phone. Kaasi waa telefoonkiisa. This is our school. Kani waa dugsigeenna. This is their house. Kani waa gurigooda. That is Amina's chair. Kaasi waa kursiga Aamina. That is Ali's car. Kaasi waa gaariga Cali. The book is new. Buuggu waa cusub yahay. The pen is old. Qalinku waa duq. The car is small. Gaarigu waa yar yahay. The house is big. Gurigu waa weyn yahad. The boy is happy. Wiilku waa faraxsan yahad. The girl is sad. Gabadhu waa murugaysan tahay. The student is clever. Ardaygu waa caqli badan yahay. The teacher is kind. Macallinku waa naxariis badan yahay.